السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركة للسود واضح أدي هذا ومهتسنتهين مقال كان وحن ربعنا للكل وذاقه قد حالي مدحوين ترامب ووجيديي كونغرس كأو مديسان إسلام كان الشعب كمريكانكو أي سئادة أولى السعودين أي وحل ليه وحي هيد قد آدو وناكسن مدحوينه كدواد لبسا عدد أيو هدلي هل كردقة قد دي سنة وحي هيد أمريكا وهذا لبقول كونتون سنة جرسانيسا bisha July ee soo socota waxay tahay mid awood leh isla markaana barwaaqo ah adduunkana laga qadariyo isaga iyo Ilhaan Cumar maxaa ku dhaxmaray intii khudbadiisa uu waday oo la arkay Ilhaan Cumar oo dhowr jeer ku qaylinaysa isla markaana dhahaysa isceebso dila ayaa tahay Trump laba arrin ma uusan ku soo hadal qaadin khudbadiisa arrintii Epstein file iyo howlgaladii ciidamada ICE ay ka sameeyeen gobolka Minnesota oo laba muwaadin oo Mareykan ay ku dhinteen ma uusan ku soo hadal qaadin arrimaha dhaqaalaha ayuu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ayuu ka hadlay taariifkiisa ayuu ka hadlay xuduudda ayuu ka hadlay canshuurihi ayuu ka hadlay Iiraan ayuu ka hadlay dagaalo sideed oo dagaalaha uu joojiyo haddana kii sagaalaad oo Ukraine iyo Ruushka uu ku howlan yahay ayuu ka hadlay arrimahaasi oo idil ayaan rabaa bal inaan idinla wadaago iyo arrimaha Soomaalida isagoo soo hadal qaaday iyo musuqmaasuqa mar kale Ilhaan wajigeedu sidoo ahaa markii uu Soomaalida burcadbadeed uu ku tilmaamayay qodobadaasi ayaan rabaa bal inaan idinla socodsiiyo guud ahaan bal khudbadii xalay Trump uu jeediyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa aan idin dul maro madaxweyne Trump xalay waxa uu Congress-ka ka horjeediyay khudbadii ugu dheereed ee madaxweyne Mareykan uu jeediyo khudbadiis waxay socotay 1 saac iyo 48 daqiiqo khudbadii ugu dheereed waxa Congress-ka ka horjeediyay madaxweyne Clinton sanadkii 2000 waxaana ay ahayd 1 saac iyo 28 daqiiqo iyo 49 second marka Trump ayaa rikoorkaasi la wareegay waxa khudbadiisa hal ku dhigiisa ahayd maadaama Mareykanku uu 250 sano jirsanayo bisha July ee soo socota Mareykanka oo 250 jirsaday isla markaana ah mid awood badan barwaaqaha isla markaana caalamka laga qadariyo madaxweynaha waxa uu casuumi karaa dad marti ah waxa kamid ahaa dadka uu casuumay qaar kamid ah ciidamadii howlgalkii lagu soo qabanayay madaxweynaha Venezuela horaantii bishii January ee sanadkan ka qayb galay tiimka ragga ee Mareykanka ee ciyaarihii Olombikada Milano lagu soo gabagabeeyay toddobaadkan ciyaarta barafka lagu ciyaaray ee hockeyga ka soo qaaday dalka Canada uu sheegay xitaa inuu bilado guddoonsiin doono waxa uu sidoo kale casuumay oo goobjoog ka ahaa haweeneydii uu ka dhintay ninkii cadaanka ah ee cunsuriga ah Charlie Kirk oo September 10keedii lagu dilay gobolka Utah isagoo jaamacad halkaasi hadal ka jeedinaya laakiin 70 xubnood oo xisbiga dimuqraadiga xubnaha baarlamaanka ku jira labada aqal ma aysan ka soo qayb galin oo waa ay diideen kuwa joogayna madaxweynaha ma aysan u sacbinaynin mana aysan istaagaynin marka uu hadalka halkaasi ka jeedinayay sidoo kalena waxa jirta garsoorayaashii maxkamadda sare maadaama aan ognahay hadda 5 maalmood ka hor 20kii bishan ay maxkamadda sare garsoorayaasha 9 ah 6 kamid ah ay sharci darro ku tilmaameen taariifkii madaxweyne Trump uu ku soo rogay wadamada caalamka intooda badan ma aysan joogin 4 xubnood oo kaliya ayaa timid halka 5 xubnoodna ay maqnaayeen xubnaha yimid waxa kamid ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts garsoore Elena Kagan Brett Kavanaugh oo Trump uu magacaabay iyo Amy Coney Barrett oo Trump uu magacaabay markii Trump intuusan khudbadiisa bilaabin waxa uu salaamay oo kaliya gudoomiyaha maxkamadda sare Amy Coney Barrett iyo sidoo kale Brett Kavanaugh iyo Elena Kagan ma uusan salaamin xubnaha aan imaaninna waxa sidoo kale kamid ahaa Clarence Thomas Samuel Alito Neil Gorsuch oo Trump uu magacaabay iyo Ketanji Brown Jackson oo madaxweyne Biden uu magacaabay marka waxa Trump xitaa markii jimcihii uu hadlayay oo taariifkiisii sharci darro ay ku tilmaameen xubnaha maxkamadda sare waxa uu yiri xitaa ma doonayo saddexda aniga ay taageertay oo kaliya waan casuumaya anigoo waliba ku faanaya laakiin xubnaha kale way imaan karaan haddii ay imaanayaan iyo waliba haddii kale marka waxa jirtay sidoo kale xildhibaan dimuqraadi iyo Al Green la yiraahdo inuu isaguna uu soo qaatay boor farmadow ay ku qorantahay uu leeyahay dadka madowga ah daanyeero ma ahan waa kii Trump 2 toddobaad ka hor bartiisa True Social soo geliyay madaxweynihii hore Mareykanka Obama iyo xaaskiisa oo daanyeero u eg isagana markii dambe xildhibaankan Al Green waa laga saaray khudbadda madaxweynuhu
uu jeedinayay marka intaasi waa arrimihii bilowga ahaa laakiin madaxweynuhu khudbadiisa markii uu bilaabay waxa uu ka hadlay arrimaha inflationka sicir bararka wuxuu yidhi maamulka Biden iyo sidoo kale xulufadiisa Congress ee dimuqraadiyiinta waxa ay nooga tageen sicir bararkii ugu xumaa ee taariikhda Mareykanka laakiin 12 bilood oo aan xilka hayay inflationkii hoos ayaan u dhignay laakiin meel muddo 5 sano uusan gaarin ayaanan gaarsiinay oo waxa uu sheegay in 1.7 boqolkiiba ay gaarsiiyeen saddexdii bilood ee u dambeysay sanadkii la soo dhaafay wuxuuna sheegay in gaaska sidoo kale hoos u dhac weyn laga dareemayo $6 uu gaaray meelaha qaar laakiin hadda uu sheegay in meelaha qaar $1.99 iyo sidoo kalena Iowa markaan booqday toddobaadyo ka horba waxa uu marayay ayuu yiri meelo kamid ah $1.85 marka madaxweynaha arrimaha sicir bararka ka hadlayay dhinaca kale madaxweyne Trump waxa uu in muddo u ololeynayay mail-in ballot-ka wax la yiraahdo inuu joojiyo waraaqaha dadku marka doorashooyinka la gaaro codkooda intay dhiibtaan ka bacdi la diro markaas kadib arintaas wuxuu yiri musuqmaasuq fara badan ayaa ka dhalanaya sharci ay jira hadda Congress-ku ay aqalka wakiilada meel mariyeen sanadkan hor yaalla oo qof kasta oo isku diiwaan gelinaya inuu codeeyo inuu cadeeyo inuu muwaadin Mareykan yahay arintaas waxa uu sheegay sababta arintaasi aan u doonayno waxay tahay yiri in la hubiyo doorashooyinka inaan la musuqmaasuqin laakiin dimuqraadiyiintu wuxuu yiri sababta kaliya oo ay u doonayaan in aan dadka muwaadiniinta Mareykanka qof kasta oo isdiiwaan gelinaya aan la weydiin inuu muwaadin yahay in kale waxay doonayaan doorashooyinka inay xadaan ayuu yiri amaba ay qishaan maxaa yeelay yiri markastaba waxay la yimaadaan marmarsiyo ah madaxweynuhu waa cunsuri iyo waxyaabo kale oo aan loo joogin laakiin waxa uu yiri ujeedada kaliya siyaasadoodu aad ayay u xuntahay wuxuu yiri mana la dooranayo haddii aysan doorashooyinka aysan xadin laakiin arintan waa inaan joojinaa ayuu yiri oo qof kasta oo isdiiwaan gelinaya inuu codeeyo in uu muwaadin Mareykan yahay waa inuu cadeeyaa Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu ka hadlay arrimaha xadka Mareykanku la wadaago Mexico waxa uu yiri 4 sano oo maamulkii hore ee madaxweyne Biden dadka sharci darrada ay u ogolaadeen iyagoo aan la baarin in Mareykanka ay soo galaan hadda waxa uu yiri waxaan leenahay xadka ugu awooda badan isla markaana ugu amaanka badan waxana uu sheegay taariikhda Mareykanka ma aysan soo marin in xadka sidaasi amaan looga dhigo 9 bilood ee la soo dhaafay hal qof oo sharci la'aan ma uusan soo galin Mareykanka looma ogolaan ayuu yiri laakiin waxa uu sheegay markastaba inay soo dhaweynayaan dadka sida sharciga ah ku imaanaya Mareykanka kuwaas oo wadankeena jecel aadna u shaqeynaya isla markaana sidoo kalena wadankeena joogteynaya isla dadkaasi waan u ogolnahay inay si sharci ah ku soo galaan Mareykanka ayuu isagoo arrimahaas ka hadlayay arrimaha xuduudahana Trump waxa uu yiri waxa jirtay mararka qaar in xubnaha dimuqraadiyiinta uu ku camiranayay waxa uu mararka qaar dhahayay bal fiiriya qof istaagaya oo ii sacbinaya malahan waa inaad isceebsataan ayuu dhahayay dadkan waa ay waalan yihiin ayuu yiri waxaan idin sheegayaa ayuu leeyahay dimuqraadiyiintu inay yihiin dad waalan waxaan aad ugu faraxsanahay ayuu yiri in aan wadan leenahay maxaa yeelay dadkan isagoo waliba Ilhaan Cumar farta ku fiiqayay ayuu waxa uu yiri dadkan oo dimuqraadiyiinta wadankeena ayay burburinayaan walaakiin waxaan imaanay waqtigii ku haboona ayaan imid ayuu yiri oo wadanka waan ka badbaadiyay bal intaas si kooban isagoo dhahaya dimuqraadiyiinta dadkan waa ay waalihiin waliba Ilhaan Cumarna farta ku fiiqaya meeshii ay fadhisay haddii aanan wadanka ka soo gaari lahayn dimuqraadiyiinta wadankeena waa ay burburin lahaayeen isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri sidoo kale waxa jirtay mar dhamaanba xubnaha uu yiri hadalkan aan sheegi doono haddii aad igu raacsan tahay istaag waxa uu sheegay Trump in xubnaha uu ka codsanayo in ay istaagaan isla markaana sidoo kalena ay sacbiyaan waxa uu yiri maamulkeena waxyaabo aasaasi u ah ayaa jiro marka haddii aad taageersan tahay taageero muuji oo istaag ayuu yiri hadalkan aan sheegi doono waxa uu yiri waajibka koobaad ee dawladda Mareykanku waxa ay tahay inay ilaaliso muwaadiniinta Mareykanka laakiin ma ahan in dadka sharci la'aanta ay ilaaliso xubnaha dimuqraadiyiinta ayuu arintan ula jeeday dimuqraadiyiintu ma aysan istaagin mana aysan sacbin qaarkood waxa la arkayay iyagoo fadhiya isla markaana madaxa ruuxaya waxa uu yiri marka ay istaageen Republicaanku markastaba waa istaagayeen taageerayaashiisa maadaama xubnaha Republicaanku ay taageerayaashiisa yihiin waana sacbinayeen waxa uu ku yiri xubnaha dimuqraadiyiinta waa inaad isceebsataan maxaa yeelay arintan ayaa diideen in aad u istaagtaan waxa la arkayay marka in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo mararka qaar ku qaylinayso dhahaysa adiga nafsad ahaantaadu
waa inaad isceebsataa maxaa yeelay xitaa wuxuu ka hadlayay magaalooyinka ama gobolada dimuqraadiga ee sanctuary citieska oo dowladda federaalka arrimaha immigrationka aan kala shaqayn wuxuu yidhi waxay difaacayaan dambiilayaasha iyo kooxaha daroogada ka ganacsado marka congressku waa inay sanctuary citieskaasi ay meesha ka saaraan marka Ilhaan Cumar codkeeda oo iyadoo qaylinaysa oo dhahaysa adiga xitaa dilaa ayaa tahay maxaa yeelay muwaadiniin Mareykan ayaad Minnesota ku dishay iyaduna halkaasi ay Ilhaan ay dhinaceeda uga qaylinaysay ugu dambeyntii madaxweyne Trump waxa uu ka hadlay arrimaha musuqmaasuqa waxa uu yiri waxa tusaale muuqata musuqmaasuq u ah Somali community ama bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota waxa uu yiri 19 bilyan oo lacagtii canshuur bixiyaasha Mareykanka ah ayay khiyaaneen Ilhaan oo qaylinaysa ayaad maqlaysaan markaas oo dhahaysa been ayaad sheegaysaa oo luqadda Ingiriiska ku hadlaysa markaas wuxuu leeyahay ma arrintaasi warbixinadaasi waan haynaa oo nambaraduna xitaa intaasi waa ay ka badan yihiin waxaana jira musuqmaasuq inuu intaasi ka badan yahay gobolada California Massachusetts iyo sidoo kalena Maine ay ka sii daran yihiin marka waxa uu sheegay musuqmaasuqa noocan oo kala ah waxa uu burburinayaa dunta wadanka Mareykanka laakiin waxa uu yiri inkastoo baaritaanku 4 bilood ka hor uu bilaabay waxaan ku dhawaaqayaa dagaalka lagu jiro musuqmaasuqa inuu hogaamin doono madaxweyne ku xigeenka JD Vance Ilhaan Cumar oo waxa la arkayaa mararka qaar xitaa indhaheeda in ilin ay ku taagan tahay loo maleeyo isla markaana qaar kamid ah xubnaha agfadhiyo dimuqraadiyiinta ay leeyihiin abal iska raali noqo waxa kugu dhacaya waan arkaynaa waxa uu sidoo kale Soomaalida ku tilmaamay in ay yihiin burcad badeed xaalufisay ayuu yiri gobolka Minnesota waxana uu sheegay in musuqmaasuqa noocan oo kala uu xasuusinayo in qaar kamid ah wadamada caalamka uu ka jiro musuqmaasuq laaluush iyo sidoo kale sharci la'aan waxana uu xaqiijiyay in arrintaasi marka dambe ay wadankeena u soo dhoofinayaan ayuu yiri oo dadka immigrationka oo aan baaritaan lagu sameeyay xuduudaha iska furan arrintaasi annaga ayayna soo gaaraysaa dadka Mareykanka ayayna saameynaysaa caafimaadkii ayaa ku qaaliyoobaya gabgawaaridii ayaa ku qaaliyoobaysa sidaas darteed waxa uu yiri anagu game ma ciyaarayno waa in aan arrintan joojinaa isagoo ka hadlaya arrimaha musuqmaasuqana Ilhaan Cumarna xitaa ay ku qaylinayso dhahayso waa beenta waxba kama jiraan isla markaana madaxa ay ruuxayso bal ila daawada muuqaalka Trump dhinaca xisbiga dimuqraadiga khudbadii madaxweynuhu markuu jeediyay kadib waxa ay u doorteen khudbadda dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee jawaab celinta inay u jeediso gudoomiyaha cusub ee gobolka Virginia Abigail Spanberger waxana ay sheegtay madaxweynuhu maadaama Congress-ka uu ka hor hadlay ay tiri madaxweynaheenu runta ma uusan idin sheegin laakiin waxaan rabaa si cad oo cadaalad ah inaan idila hadlo shacabka Mareykanka ee daawanayay 3 su'aal ayaan doonayaa inaan idin weydiiyo madaxweynuhu ma ka shaqeynayaa in adiga iyo waliba qoyskaaduba nolol fudud oo la heli karo in aad heshaan madaxweynuhu sidoo kale ma ka shaqeynayaa ammaanka shacabka Mareykanka wadanka gudihiisa iyo waliba midka dibadda madaxweynuhu adiga ma ku shaqeynaya waxa ay sheegtay in sicir barar badan uu jiro dhinaca tamarta dhinaca jaalikeerka dhinaca raashinka iyo waliba dhinac kasto waxaana sidoo kale ay xaqiijisay in madaxweynuhu ilaa iyo markii xilka uu la wareegay uu dhibaatooyin fara badan dhinaca canshuuraha uu ku soo rogay ay saameeyeen ganacsiyada yaryar iyo sidoo kale beeraleyda waxaana ay xaqiijisay walow 4 maalmood ka hor ay maxkamadda sare diiday canshuurihiisa laakiin dhibaatadii shacabka gaari lahayd mar hore ayay gaartay ayay tiri marka sidaas darteed ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynuhu uusan danta dadka Mareykanka uusan ka shaqeynaynin haddana uu bilaabay mar kale canshuuro 15% inuu ku soo rogo wadamada caalamka taasi oo sii dhibaataynaysa shacabka Mareykanka dhinaca beeraleyda iyo waliba ganacsiyada yaryar oo la dhibaatoonayay canshuurihii hore oo Trump uu ku soo rogay haddaba waa tan Abigail Spanberger gudoomiyaha gobolka Virginia oo xisbiga dimuqraadiga ay u doorteen khudbadda jawaab celinta oo koobnayd 13 daqiiqo ahayd jeedisay isla markaana shacabka Mareykanka si toos ah ula hadlaysay ugu dambeyntii Trump waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah sida sheegay arrinta Iran oo kale oo ka hadlay waxa uu yiri ma doonayo in ay nuclear yeeshaan haddii ay wada hadalka ama heshiis ay qaadan waayaanna waxaba laga yaabaa inuu dagaal uu dhaxmaro arrinta Ukraine ayuu ka hadlay Ruushka uu sheegay in 8 dagaal uu jeejiyo xitaa
in 8 dagaal uu joojiyay oo xitaa waxa uu ku daray Masar iyo Ethiopia inkastoo ay isku haysteen biyo xireenka Ethiopia dhistay laakiin labadaasi wadan ma aysan dagaalin marka waxa uu yiri 8 dagaal ayaan joojiyay kii sagaalaad oo Ukraine iyo Ruushkana hadda ayaan ku howlanahay marka Trump arrimahaasi oo idil ayuu ka hadlay waxa sidoo kale jirtay inuu ciidamo bilado guddoonsiyay mid kamid ah askartii diyaaradaha helicopterska waday markii la soo qabanayay madaxweynaha Venezuela waraantii bishii January oo 4 xabadood ay ku dhacdo isagoo dhaawaca oo biraha lagu socday halkaas abaalmarin ayaa lagu guddoonsiyay askariga ka tirsanaa ciidamada ilaalada qaranka ee dhamaadkii bishii December nin Afghanistan ka yimid uu sidoo kale ku dhaawacay meel aan ka fogeyn aqalka cad oo dhaawacii ka soo bogsaday isagana bilad ayaa halkaas lagu siiyay marka madaxweynaha khudbadiisu aad u dheereyd waxa siyaasadda dadka falanqeeya ay leeyihiin madaxweynaha khudbadiisu aad ayay u wanaagsanayd isagoo sidoo kalena laakiin arrintii Epstein file aan soo hadal qaadin arrimihii gobolka Minnesota howlgaladii ciidamada ay muddo 3 bilood ay ka wadeen oo 2 qof oo muwaadiniin Mareykan ay ku dhinteen uusan soo hadal qaadin aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta arrimahaasi ayaan rabay inaan idin la socodsiiyo nabadgelyo